raxmadii ilaah iyo dadyo waatan rabadaane raxmadii ilaah iyo dadyo waatan rabadaane rajab waa dhammaato shabcaan reesto toban baa waqtiyada isrixo iyadoo roraysay timideen bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhawaada tababarkeennii maareynta waqtiga shalay waxaynu soo bilownay qaabka loo qoro jadwalka si loo maareeyo waqtiga sidii markaa aynu shalay soo sheegnay jadwalada waxaa loo kala qaadaa laba qaybood mid waxaa loo yaqaanaa waa jadwalka shaqada ka kalena waxaa loo yaqaanaa waa jadwalka maareynta waqtiga marka jadwalka waqtiga ayaa loo yaqaanaa dhinaca kale dadka qaarkood magaciisa waxa u yaqaanaan waa jadwalka waxay yiraahdaan maalinlaha macnaha waa jadwalka uu baahan yahay qof waliba inuu isticmaalo maalin walba marka jadwalka maalinlaha sida loo dejiyay waa sidan soo socota halka waxa inoogu qoran waa maalimihii waxaan ku taxnay dhammaan toddobaadkii oo dhan min sabti ilaa jimca halka waxaad ku qoraysaa waa taariikhdii maalin walba iyo taariikhda aad socoto kadib waxaan u kala qaaday 5 qaybood baan u qaybiyay jadwalka halka waxaan ku qoray subax waa aroortii oo dhan salaada subax marka laga baxo ilaa duhurkii halka waxaan ku qoray waa duhur bacda duhurkii halka waxaan ku qoray casar halka waxaan ku qoray maghrib halkana waxaan ku qoray cishaay oo fiirsada jadwalkani kuma bees gareysna saacadaha midna kuma qorna waxaan qabanayaa 7 ilaa 8 waxaas ama 9 ilaa 10 waxaasan qabanaya kuma qorna wuxuu laakiin u qaybsan yahay periods waqtiyo inagu markaa maadaama nahay dad muslimiina waxaan ku bees gareeyay anigu waqtiyada salaada shantii waqti ayaan u qaybiyay marka 24 saacadood waxaan u kala qaybinay 5 qaybood laakiin adigu waxa aad samaysan kartaa waxaad u qaybsan kartaa kolba sidii ku anfacaysa waxa laga yaabaa halkaan 5 aan uga qaybiyay inaad 6 u qaybiso haddii aad jeclaato waxaad u qaybin kartaa 4 3 kolba sida adiga ay kula noqoto مثلا nimanka Mareykanka oo kale marka ay dejisanayaan dadka muwaadiniinta Mareykanka oo kale ninka muwaadinka Ameerikaanka jadwalkiisa maalinlaha wuxuu kala qaybiyaa 3 qaybood oo kaliyaad qaybta hore waa wuxuu yiraahdaa waa morning waa aroortii qaybta labaadna waa afternoon waa gelinka dambe shaqada markuu ka soo rawaxana waa evening waa habeen marka 3 qaybood ay u kala saartaan marka taasi adiga aan ku deenayaa inta aad u kala saaranayso anigu laakiin ka tusaale ahaan iyo ka anigu aan isticmaalaa wuxuu u qaybsan yahay 5 qaybood waayahay jadwalkan haddaba aynu buuxinayno isku dayna inaynu maanta buuxino maanta taariikh waa isniin waana 4 bishii shanaad xagga miilaadiga markaan xisaabiyo ramadaantuna maanta waxay socotaa 11 waayahay marka maanta waxaan xisaabinayaa waa maalin isniina bishu waa 4 May weeyaan 2020 waayahay taariikhdii markaa saasaan u buuxiyay inta kale ayaa ii soo hadhay inaan buuxiyo jadwalka haddaba maalinlaha si aan u buuxiyo waxaan samaynayaa marka koowaad waxaan iska dhex saarayaa dhammaan waqtiyadii dadka kale ay la lahaayeen midlan saasaan u eegayaa min sabti ilaa jimca waxa soo saaraysaa waqtiyada ay dadka kale leeyihiin ama waqtiyada aad qabsato shaqo joogto ah ayaa soo saaraysaa midlan haddii anigoo kale aan isku bees gareeyo maalinka isniinta oo kale subaxii aroortii laga bilaabo 7 aroornimo ilaa 11 waxaan tagaa jaamacadda marka halka waxaan ku qorayaa maalinka isniinta 4 May jaamacadda ayaan ku qorayaa wasi jadwalkayga hadda jaamacadu waxay xiran yihiin laakiin markii hore sidaas u ahaa waayo duhurkii maxaan ku qorayaa maxaan qabanayaa duhurkii midlan waan xasuusanayaa ma duhurkii waxa ma qabto bacda العصرkii waxa ma qabto waayo maghribkii hadana waxaan ku laabanayaa jaamacaddii ilaa bacda cishaa'iga jaamacada ayaan qorayaa waayahay halkaasi waa waqtigii jaamacadda aan tagay waxa laga yaabaa maalimo kale inay soo noqnoqoto oo aan jaamacadda tago maalin walba oo aan shaqo qabto waan buuxinayaa مثلا waxa laga yaabaa khamiista soo socoto kale inaan midtan tagay shir aan ka qayb galay ama xaflad aan tagayo marka waxa la khamiista bacda العصرka oo kale shir baan tagayaa saas ayaa halka ugu qoraysaa marka talaabada koobaad ee jadwalka maalinlaha lagu buuxiyaa waxa weeyaan waa inaad iska dhex saarto dhammaan waqtiyada aad hawsha ama shaqada leedahay kadib waxa ku soo hari doonta waqtiyada adigu aad maamulayso toddobaadkii haddii markaa jirto toddobaad walba shaqo kugu soo laalaabata fadlan iska buuxi waxa ii soo haray midlan tusaale ahaan intaasoo waqtiyo kale ay banaan markaan ka dhex saaray waqtiyadii aan meel tagay ama aan wax qabanayay waxaan ku laabanayaa jadwalkaygii shaqada waxaan ka soo saarayaa shaqooyinkii ii yeelay mar walba waxa lagula taliyaa qofku in uu buuxiyo oo uu qorsheeyo hal maalin oo kaliya midlan anigu waxaan joogaa maanta isniin maanta kaliya ayaan qorsheynayaa waxaan halkan ku haystaa jadwalkaygii shaqada waxaan eegayaa marka maxaa shaqo talow ii taallay xaggii teleefanada haddaan eego waxay ahayd midlan waxa ii yeelay inaan Khalid la hadlo lacagtii weydiiyo waxaan leeyahay midlan maanta waa isniin aroortii way iga buuxdaa bacda العصرka Khalid waa inaan la hadlo waayahay
intii kale dhow iga buuxaan duhurkana waxaan u qaadanayaa matalan nasasho ahaan maalinkaygii markaa maanta sida ayuu ku buuxaa isniintii berri markay gaadho salaasada maanta ma sii buuxinayo berri salaasada wixii aan qaban lahaa berri salaasada markay gaadho sidoo kale aan u buuxinaya jadwalkaygii waxaan eegayaa shaqada waxaan leenahay jadwalkaagii shaqada maxaad maanta qaban kartaa matalan tusaale ahaan waxa ay qoran in aan diyaariyo imtixaan halkaas salaasada oo kale subaxa waxaan leeyahay imtixaan diyaarin laakiin waa goorma markaan gaadho maalinka salaasada anoo maanta isniin jooga berri salaasada ma sii qorshaynayo maalinka salaasada berri tola ama habeenimada markaad seexanayso ayaad qorshaysanaysaa waayahay jadwalku haddaba markuu sidan u dhigan yahay ka waran waxay ahayd matalan inaan Khalid u tago ama aan la hadlan lacagteedii ka doonto ka waran haddii ay cilad dhacdo matalan teleefankiisu hadduu xiran yahay ama uu roobdo oo kala ka soo qaadan u tagi kari waayo jadwalkaygii maxaan ku samaynayaa jadwalada waagi hore sidii loo qori jiray waxay ahayd saacadaha ayaa lagu bees gareyn jiray haddii markaa toddobaadkii oo dhan uu iga buuxo dee maalinkaasi haddii cilada timaado waxay noqonaysaa in muxuu ahaa jadwalkaygii oo dhan uu iga khalkhalo laakiin matalan haddii cilada timaado Khalid aan u tagi kari waayo ama aan la hadli kari waayo simbali wax dhibi ma jirto maalinka salaasada bacda casarka uma ku wareejinaya halka uma ku qorayaa Khalid marka jadwalka maareynta waqtiga sida ayaa loo dejiyaa kii horena waynu soo baranay maareynta shaqada ahaa kana waa jadwalkii waqtiga ahaa ee maalinlihii marka waxaad samaynaysaa waa inaad haysato warqad ay kugu qoran tahay jadwalkii noocan oo kale uu qoran yahay waa idin soo diri doonaa iyadoo habaysan baan idinku soo diraya weerka waxaad samaynaysaa marka 4 koobi baad ka samaysanaysaa halka hore warqadii A40 matalan hadii saasoo kale tahay warqadii cadaankii halka qaybaad ku qoranaysaa halkaana qaybaad ku qoranaysaa toddobaad baa saa kugu buuxa waxa kugu buuxan jira 2 toddobaad ayaa sida kugu buuxa dhinaca kale marka hadaba aynu u wareegnana labadii toddobaad ee kale ayaa iyagna aad ku koobiyeysanaysaa oo kugu buuxi doona marka hal warqad oo A4 waxa kugu buuxi doona bildan wixii aad qaban lahayd iyo shaqadii aad qaban lahayd dariiqaasi hadaba aynu imika sawirnay waa dariiqa casriga ee loo habeeyo loona maareeyo waqtiga maanta laga bilaabo waad baratay sida loo qorsheysto waqtigaaga maanta laga bilaabo ku dhibi mayso in aad jadwalkaagii aad ku dhaqmi kari weyday waxaan rajaynayaa insha Allah inaad ka faa'iideen mowduucaasi samaysashada jadwalka tababarkeenina way noo socdaa waxaan ku rajo weynahay inaad dadka kalena aad sii gaarsiisaan asxaabtiina aad sii bartaan familiga iyo qoyskana aad uga faa'iideen doontaan insha Allah taala anigana marka aad ku dhaqantaan ee aad ka faa'iideysataan waqtigiinu idin maareysmo inaydan anigana iga iloobin inaad ii soo ducaysaan insha Allah taala aad iyo aad baan dhamaantiin idin salaamaya muuqaalka waxaan ka codsanayaa marka aad dhamaysato inaad like siiso waa YouTube-ku muuqaal walba oo aad like siisay wuxuu u tixgelinayaa inuu yahay muuqaal aad wax ka faa'iideysatay maanta halkaas ayuu nagu joogayaa tababarkeennii aad iyo aad noo mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh